الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله أما بعد سو دوادا داوديال عشركدينا cusub inoo bilaaban doono kuwaas oo kusaabsanaan doonaan HTML ama web designing kaas oo tixana noo ahaan doono si joogto ah aan usoo gelin doono barta YouTube-keena ku leenahay. Haddaba sidee loo sameeyaa ama loo dhisaa web designing anagoo dhisi doono magacaan meesha ku qoran welcome our page xaggaasna waxaa ku qoran mid oo lagu soo gaabiyey Muqdisho Educational Somalia. Marka anagoo tusi doono naqshadan si loo sameeyo waxaan ka bilaabi doonaa structure-ka. Marka waxaan isticmaali doonaa Notepad+ ayadoo adigoo isticmaali karaa Notepad-ka computer ku jiro. Notepad+ waa kaasa waa midkaas cagaaran ee labada plus ay garaacsan tahay gadaal. Notepad-na waa midkan kale oo computer-ka mar walba ku jiro laakiin waxaa ku qoran inaad isticmaashid Notepad+kan waayo wuxuu ku tusi doonaa leenka meesha aad ka maraysid enter lix leen maraysaa. hadda ujeedaan Notepad-ka fiican. Marka aan bilaawno dhismaha website-ka ka bilaabanaya tags open tag iyo close tag ayuu ka bilaaban doonaa. Labadan waxay kala yihiin open tag waa midka la soo furaayo, close tagna waa midka gadaal looga xiraayo. waxa kan dhexda ugu jira waxaa loo yaqaanaa element HTML ha ahaado, head ka ahaado, title ha ahaado, wuxuu doona ha ahaado. Dhexda waxa lagu qoran doono waxaa loo yaqaanaa element. Marka dhismaha website-ka waxa weeyaan afar waaye, afaraan lagu soo xiraa, 8 xabo waaye. afarta la furaayo waxa waaye HTML waa soo furtay, waxaa kaloo furaysaa head, waa soo furaa asagana title-kaasna waa furay. waxaa ku kale ku xijinayaa title-ka isla meeshiisa ku xiraysaa waxaan dhigana Muqdisho MIT Muqdisho International Technology ayaa la soo gaabiyey magacaasi. waxaa raacsiin kartaa .com ama .net ka jeceshahay. title-ka waa isoo xiraysaa, title-ka asaga meeshiisa ku soo xiraysaa. kadib waxaa furnaysaa badiga waxa waaye caloosha wax qaadaysa waaye oo lagu soo bandhigi lahaa wixii aad qoraysid background-ka dhexdiisa. badiga isla meesha ay ku soo xiray asagana waa ku daba xijinaysaa. kadib waxaa soo xiraysaa head-ka soo xiree, waxaa soo xiray HTML soo xir. intaas markaa haysatid asaas u haysatid save aad dhehaysaa. markaas Ctrl+S ama save kaad jeceshahay waa kaasa save. laakiin waxaa ku wanaagsan inaad isticmaashid shortcut-ka oo ah Ctrl+S. marka meeshaas waa magaca waa ku bedelaysaa MIT ku qoranaa, waxaa raacsiinayaa .html. waa waajib inaad raacsiisid .html si uu kugu shaqeeyo website-kaaga. kadibna meesha waxaa ka fiirsanaysaa aad dhigi lahayd computer-kaaga. desktop hadda aniga dhiganayaa save ideh. waa kaasa waan sameeyey, waan dhisay marka hore, kadibna waa run gareynayaa. waxaad run ayaa dhehaysaa. waa kaasa offset cad aan wax ku qornayn ayaa ii soo baxay. marka mid baan idiin sheegayaa, badigaas aad furaysaa agtiisa enter aad dhehaysaa. badigaas furan iyo badiga xiran dhexdooda wixii aad ku qortid waa wixii kasoo muuqan lahay background-ka oo halkaas meeshaas ayuu kasoo muuqan doonaa. hadda aad kusoo welcome our page, Ctrl+S wax allaale waxaa qorto waa save kareynaysaa. run dheh, tag browser-ka, kadibna refresh dheh. waa kaasa waa isoo baxay welcome our page. intaas ayaan kusoo koobaynaa cashirkeena koowaad kaasoo ahaa structure-ka ama qaab dhismeedka website-ka.
insha allahu tacaala lesson 2 iyo anigoo idin leh macalin Bashiir kusoo dhawaada beedka cusub ee Muqdisho International Technology. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.